السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعي أولاشين هابي channel 1 سود واد all صيع هاي ما أنت محلقة شاكينيا قرح على سكوسو قادمين كسر الدفاع إذن دحي هاي ما أنت محلقة شاكينيا هاي بارها بروشة بريان وحا قبصدي وركن إيو بوليتيجين قبصدي يعني ما أنت ربع إنان كجوابو تضفر بدن وإني اسكاها الله ماشي أفرديو لكن إني حل وحبوبونيان ما هنا حل ما يقانا سالو كانوا سومالي horta bataati waxay jecel yihiin waxa la booboniyo laakiin ma yaqaanaan waxa xal loo sameeyo ma yaqaanaan sidii wixii meesha ka soo baxay wixii inay raadiyaan ma yaqaanaan waxay inay marxaati u hayn wax ayna u joogin bay rabaan maalin kasta inay ka hadlaan waxay rabaan wax la jeejeediyo hadal dhinacaan loo wado mar dhinacaan loo wada rabaan in maxaa laga hadlo waxaas looma baahanyo no waxaas looma baahanyo qofkaas in runta loo sheego waa muhiim waaye waxaan ka hadlayaa baryahan waxa baalaha bulshada qabsaday gabadha eedna la dhaho iyo gabadha maxaa dhahday la dhaho Faatuma Haas eedna waa dad hore isku yaqaan waaye waa dad anaga hortii is yaqaan waaye waa dad maxaa dhahday si soo jaan qaaday waaye maxaa dhahday waa dad hore isku yaqaan oo saaxiibni iyo walaalnimo ka dhaxaysa waaye qofkas laakiin meesha wuxuu la soo joogsanayaa maxaa dhahday waxa Faatuma Haas maxaa ninka ku caay mise eedna san bas mise eedna waa maskiinad mise Faatuma Haas ninka santri waxa iska dhaafa Faatuma Haas waxay tiri eedna waxay tiri tiirata inay wax saamaxsiiso oo dar ilaahay u socoto maaha in social media soo fadhiisato maaha ee taahdo Faatuma Haas nin baa sidan ka tirsan baa ka tiri mise eedna sidan baa samaysan ma sameeynin waxayda marxaatu u ahayn dhiina ku arkin lama sheego hala wareegina war ay meesha ni yaalin in la wareegto waa mamnuuc wararka oo madartay idinku dhiinaad ku arkin laga yaaba dadka maxaa u dhaxay inaad taahdin waxa la dhahaa dadka maxaa u dhaxaya si loo kala qaban karaa sidee maxaa dhahaa labada qof loo kala dhaxgal inta social media ku soo aymadisiin oo views ku raadinaysiin lama rabo views ina ku raadisiin waxa raba telefoonada ina raadisiin dad rabtinta ilaahayna oo heshiisiin way soo fadhisna waxa ku leeyin dar ilaahay baa heshiisiin qof raba dar ilaahay inuu heshiisiyo qof oo laba gabdhood oo walaalaha ahaan jiri oo saaxiib ahaan jiri social media ma soo fadhiista telefoonada inta qaado mid iyo caad u la hadli lahaa mid iyo meel kala hadli lahaydeen ma aha waajib ina maartay social media inta soo fadhiistino Faatuma Haas waxan bay tiri edna waxan bay tiri war qofka markay islaayaan maxay isku laayeen lama dhaho laakiin sidii loo xalin lahaa ayaa la qabta xal walba meeshii laga keeni lahaa baa la sameeyaa halka waa la sameeyaa halka laakiin maxay u dhacday lama dhaho laakiin dabta waxa idinka ka timid Soomaaliya maxay u dhacdaa tiraadin wax walba maxay u dhacday si u dhacay lama dhaho kelmadda maxay u dhacday marka hadda tiri maxay u dhacday wax walba wala sii boonaya sii wad tan baa sii waday tan kala sii waday tan kala sii waday kan baa sii waday kan kala sii waday halkee markaa marahay hadda rabtiin labada gabdhood ee walaalaha ah inay heshiisiin maxaa dhahday odayga horta oo adna oo kale odayga xaafadda ee guriga waaye isagana waa u jeeda aniga horta inaan sii shirgelisi maraba بليس walaalkii adiga dhax fadhiya maxaa dhahday labada gabdhood inaad maxaa dhahday reerkaaga iyo gabadha kala dhax jooga inaad sidii ilaahay kugu ogi isu kala heshiisiin nacam ceebtan dhukan meedhaysanasana inay joogsataa muhiim naagaha boobooday baxboobaninayaan sheeg waxba idan booboninaysiin maahin in wax booboninaysiin la mara maalin kasta maxay u dhacdaa tirahdin tuu maxaa dhaa waxay u dhacdaa tirada tuu maxaa tiraan maxaan sameeyay tirado tuu maxaa waxaa sameeyay wax walba waa sameeyay qofka hadaa rabti inaad heshiisiin waxa ku dhex jira ka dhex saara oo telefoonada isinta ula hadashin ilaahay dartiisa qofka loo heshiisiin oo qofka hoos loola hadla waay maaha qofka ilaahay dartiisa loo heshiisiin qofka roos social la soo fadhiista ma aha waxa runtan ii sheegaa laadihin hay markaas qofka hadaad rabtiin heshiisiya dar ilaahay oo heshiisiya telefoonka nin walba inay qaadato heshiisi oo meesha la tag oo telefoonka la hadal laakiin ka waxa idin sheegaya marka wax heshiisiinaysiina maskaxdiina fur naag hadalkay kule ma dhama naag way dacwad badan yihiin hadalkiina ma dhamaato waxa sameeysiin maxay u dhacdaa horina maxaas ku leesan lama dhaho qofka laakiin sidee u heshin lahaydeen naad ka bax adigana waxan adigana ka bax oo walaalaha han jirteen maantana walaalaha haada wixii horno شاري على ده دادي وحي هوري هذا بينكمس جديد وين أروح ولا قصب لح عصب قصب بلعبة لا هذا بتسكو سامحة عيب إذا نقطة أول نوال على هانجبتين ما أنت ولا اللي بدنا إنا سي ودتين ما حقول أقدر اللي مرة هايو إنا ترهدين باللي قرب هوس وحوش يسين إلى هذا تقف أصعد واتاس واي ما هي إله هدرت أنت رئيس سوسيس الله فرسنا وحال يقولوا إله بدرت ودو أوصعنا إله هدرت ولا بدأ قفوا سامح سواء إله هدرت وسامح سنين سبتش قايمين بودتين هاي وقفك لإله ردبتي ربا إنه سامح سيو إنه حال نجربا إن محل ده إله ولا هذا الشيء قفك على هاس ولا الله oo sina bad oo la hadla oo si ilaahay wax u heshiisiya maxay u dhacdanaha orina labada qof qolba qof waxbu sheegan qofkan waxbu sheeganaya hay
marka wixii la sheegana inaad isku wada xidho inaad hoos ula hadashin oo tireen walaal adna ka baxo dar ilaahay isku heshiisiin wax idin dhaama ma lahan meeshan joogsanaba labada qof oo laga sheekanaya wallahi maalin kasta arka waxa maanta iga soo dhawaajiyay meeshan joogsan labada qof oo laga sheekanaya arka no markasta gabdhaha iyo in la boboonay ma fiican Faadmahaas anu waan ku xidhanahay eednana waan ku xidhanahay labadooda anu waxba kamaan arkin run hadii la sheego qof walba nin walba intiisa la sheeg intaasna waan ku xidhanahay Faadmahaas ana wallahi dadka aan daawaday kamid yihiin laakiin ana hadan telefoonadooda aqaano si khaas waan ula hadli lahaa insha Allah ina sii gudbisiin isku daya waxaan la hadlayaa saxaf baa si khaas la hadlaya saxab waa ninkaaga weyn edna saxab adaraha u dhaxeeya walaalo macaan adiga awiil sidoo ilaahay kugu ogyahay inaad u soo heshiisid reer labada reer adiga kala dhaxgal way naago way boonis badin kan sii jid kan soo jidka maxaa loo idhi waan ogahay in meeshaas wax ku dhex jiraan meeshaas waxba ku dhex jiro qof dad waxay dhahaan qaarkood saxafo caytame ma arkin qaarkood waxay dhahaan edno caytame ma arkin qaarkood ma caytamin dadkaas waa run waaye laga yaabo war dad kale inay hoosta kaga jiraan waxba hoosta kaga jira idinku ma arkaysiin qofka maxaa la idhi lama idhaahdo laakiin warba dadka loo kala sheegaya eedlana waa loo sheekanaya saxafna waa laga sheekanaya Faadmahaasna warka waa loo geenaya hay marka laakiin dadkeena waxa ku dhacda dhibaatada waxay tahay Soomaalidu ma idhaqaana sidee dadkan wixii hoostooda jooga sidee looga heshiisin lahaa dad baa dadkan kala gooraya warkooda sii wada soo wada sidii baabuurkii baa la sii wada la soo wada no sida baabuurka shakada socota hala dhameeyo anu saxafa si khaas u la hadlaya ina la isii gudbiyaan ba saxafo please waan ku baraya shakada reedo soo ka qabsatay ana inta hoosna waa idin ku xidhanahay waa idin jecelahay maxaa raada Faadmahaas aad ba idin jecelahay in walaalahay baa tihiin taageeriina kamid ah waligeyga maxaa dadkeygina waa tihiin waa in jeclahayna marrabo sheeko oo aan jirin dhulka in dhaxa ay adiga nina walaalkay macaano adiga ina heshiisisid si ilaahay kugu qabta reerkaaga adiga tahay in heshiisid labada gabdhood isku keentid ala hoos u heshiisid mar damana reer soo galin ay iyo dhibaato dambe oo meesha timaado insha Allah biidnillaahi kariim waa in wada jeclahay qof walba maarata sida ilaahay dartiisa darabtiin u heshiisisin qof walba telefoonkiisa hoosta inaad kala heshiis ku daya ma ahayna la boboniyo waxay tiri wuxuu waxba kama jiro waxaasi qofka dar ilaahay heshiisay la hadal hadaan la hadli kara afkaaga xiro wabillahi tawfiiq una sii gudbiya sii shargalaya waa happy channel 1 waaye waa walaasha weeyso salaam all assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh